kooxda maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar qorshaysan saaka aroornimadii hore ku qaaday deegaanka qaayib oo ay fariisin ciidan ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug weerarka oo ku bilowday gawaari qaraxyo laga soo buuxshay ayaa waxaa xigay dagaal toos oo dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug ee fadhiga ku lahaa deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud dagaal xoogan oo muddo saacadaha socday ayaa dhex maray labada dhinac waxaana wararka deegaanku ay sheegayaan in khasaare kala duwan uu ka dhashay khasaaraha ugu badan ee ka dhasha dagaalka ayaa gaaray kooxda maleeshiyada al-shabaab oo in ka badan 25 meydadka maleeshiyaadkooda uga tagay deegaanka qaayib ee koonfurta gobolka galgaduud ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug ayaa gurmadyo kala duwan ka helay deegaanada qalaanqal dhuumoodle iyo degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxaana khasaaraha kooxda maleeshiyada al-shabaab kordhiyay kadib markii ciidamada gurmadka ay halkaasi gaareen isla markaana uu dagaalku mar kale xoogaystay sidoo kale khasaaraha la gaarsiiyo kooxda maleeshiyada al-shabaab ayaan ku sinayn geerida gaartay maleeshiyaadkooda waxaana jira gaadiid dagaal iyo kuwa caafimaad oo looga gubay dagaalka mid ka mid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug ee dagaalkaasi saaka ka qayb galay ayaa inoo xaqiijiyay in ilaa 2 gaari oo mid uu yahay nooca dagaalka kan kalena ay u isticmaalayeen daabulashada dhaawacyada iyo meydadka ka dhasha dagaalkaasi kooxda al-shabaab looga gubay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud dhanka kale wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe iyo senator Siciid Siyaad Shirwac ayaa dagaalka kadib gaaray deegaanka qaayib ee koonfurta degmada baxda ee gobolka galgaduud iyagoo halkaasi dhiirigelin iyo mahadcelin ugu sameeyay ciidamadii kala duwanaa ee ka howlgalay saaka weerarka kooxda maleeshiyaadka al-shabaab lagu jabiyay wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysay dagaalka lagu fashiliyay weerarkii kooxda maleeshiyada al-shabaab uga mahad celiyay feejignaantooda iyo sida geesinimada leh ee cashirka ugu dhigeen kooxdii weerarka soo qaaday wuxuuna u ballan qaaday in dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka ay ilgooniya ku eegi doonto saraakiishii saaka hogaamisay dagaalkii lagu fashiliyay qorshihi ay soo abaabuleen kooxda maleeshiyada al-shabaab saakay qaraxii halkan ay kula soo waabireysteen waxaa ka raacay dabcan sida saraakiishu noo sheegeen jab xoog leh dibna way ula carareen annagu si degdeg aan u soo gaarnay meesha si aan ugu kurgalno waxa meesha ka jira waxaan halkan ugu imaanay saraakiishii iyo ciidamadii aad iyo aad diyaar ugu ah waxaadna ku maray inaan muxuu ahaa aysan ka haraynin waxaan hadda saacadda laga bilaabo waxaad amar ku haysatiin meel alla meeshaad ka gaartay inaad uga daba tagtaan ayna ka harin meesha ay ayagu ka soo qaadahayaan qaraxyada ay ka soo weerar tagahayaan in aan gudahooda ugu tagno meel alla meesha joogan qof kasta oo shabaab la safta ama se shabaab uu garab intana bidahayo waxaan u aqoonsanaynaa inuu shabaab yahay qofkii iska bariyeelana dee uu ka bariyeelan yahay dawladdu cid kasta oo shabaab hargelisa ama la degta ama la muxuu ahaa shaqaysa waxaan u naqaanaa inuu shabaab yahay marka waxaan leenahay la iska bariyeelo soo sheega meesha ay joogaan waa inaad soo sheegtaan fariinta waa inaad soo gudbisaan waa inaad muxuu ahaa tiraahdaan halkaasay joogaan waa in loogu tagaa fariisimahooda loogu tagaa waa in aanan lagu suginin meeshaan dhammaan ciidamada iyo saraakiisha waxaad qabtiin amar baad qabtiin waa inaad hore ugu dhaqaaqdaan tilaabana aad ka soo qaadaan in la sugo maalin kasta inay intay soo ordaan shabaab waa la og yahay kafool iyo inay dagaal u soo galaan haba suginina laakiin waxay isku dayayaan in ay maaragtay idin khiyaanaan oo qarax soo qaataan oo idin qarxiyaan sidii saakaba ay muxuu ahaa u sameeyaan inay qarax isku soo miidaamiyaan waxay isku dayeen inay dadka iyo ciidamada maanta meeshan jooga inay meesha ku baabi'iyaan laakiinse waxaa hubaal ah naf ilaahay qoray inay noolaato inay sacidna muxuu ahaa waxba u geysan karin tii ajaseedu dhammaatayna wakhtigii loogu talagalay iyo meeshii loogu talagalay ayaa muxuu ayay ku dhimanaysaa aad iyo aad waxaan idinkaga mahad celinayaa geesinimada iyo sharafta aad muujiseen aad iskaga caabiseen aad dib ugu celiseen meelihii ka yimaadeen
aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa dowlad goboleedka galmudug oo garab ka helaysa ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ayaa dagaal kula jira kooxda maleeshiyada al-shabaab kaas oo la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada kooxda al-shabaab ay ka maamulaan deegaanada galmudug